dadka isalaamay dhan waa in wada salaamay jaceeladiina I love you guys ay wada siiye qofki arki kara wata aniga dhaawac la igaarsiiyay inna lillahi wa inna ilaihi والله جدا لقطة داوع waad u jeedaan lugtayda ma raysato ilaa hadda ilaa waqtiga ilaa hadda ma raysato ma la arki karaa waa arkayna dhaawacyada kale oo iiga yaallo meesha yani cawrada jirkayga kaleete oo aan idin tusi karin ayaa ka badan yani haddaan fanaanada iska siiba waa la yaabaysaan haye ilaa iyo jirdilaa la ii geystay haye waa la qaraacay meeshaasaa la igeeyey nin waxaa la ii dhiibay dad aana idin sheegayn ayaa ii dhiibay haye oo awood ii sheegtay waa group dhan ee iswata haye waa laga waayaa ruux ilaahay ka cabsooda waxaa la ii dhiibay oo ah adoomay soomaalida ay tirahaan adi nin askariya ayaa la ii dhiibay askarigii wuxuu igu sameeyey wuxuu ugu garaacayaa garuun bud ayuu ugu garaacayaa waxa lugtayda sidaa u dhaawacay oo diirka ka qaaday diirkeedu sooma dhashay ilaa hadda wallaahi ilaa waqtiga 2001kii ilaa hadda iyo 2gii waxay ahayd 1kii ahayd ilaa hadda diirkuu ka maqan yahay waan iska joognay kanaaca meesha igu cuntay tabakaayan ku jira laaluush baa laygu xiray maalinta dambe ayaa nin meesha shifti u soo galayaa yiri maxaa ninkan ku xiran yahay war iska baxuu yiri waxaa loo qofkii isoo xiray imow baa la yiri ama waa sii daynaynaa wuu orday nin garaa oo askari kale ah oo yani qof powerful waqtigaas meesha ninka meesha xiraya aniga oo la ii adeegsaday wuxuu ila imaaday u soo ijaaray nin powerful shaashadu ma jeedo way naga dhacaysaa sawirku shaashada garaaca Soomaaliya haye nin powerful ah oo ahaa oo magaalada kala garanaya ruux garaaho askariya oo laaluush ka qaat ayuu ii keenay meeshii baa laygu jeebeeyey jeebaa nugu xiranahay waa lila orday xabsi waxaa laygu tuura la yidhaha bangaani lama geynin kastrani xabsi la yidhaha baahida haysa meelaa ku tukatay weyse male waan ka baxay waxaan ku jiray beryo marka dadka criminalka lagu xiraa meesha maxkamadda dadka la geeyaa qofki beryo maalmo xiran waa qasab maxkamad in la geeyo bangaaniya laygu tuura koow bangaani markii aan beryo ku jiro waa layga wareejiyey xabsi kale laygu wareejiyey magaca kastrani ayaan xasuustaa waan tegey ayaanba si kii la igu wareejinayay marka been idin sheegi maayo halkana waxaa la wacay hooyaday i dhashay caawa sooma dhiman way iga hooseysaa iyo walaalahay oo xamar joogay baa la yiri ruuxii wuxuu naga qarxiyey FBI waa lay masabitay wuxuu nagu sheegay twin towerskii qarxii يعني أرجعكسو نقول شيء مالن استاجنا مليهن وأنا لرادينا يا جيل كادنا سيدنا نوقله هي هويدي waxay tiri haleela hadashiyo ودي ذي باليرا وقف حرام بنا حبس كتيرة هي waxaad naga samaysaa maamoy diyaaraddan saare waan soo diri doonaaye maxkamadaha xamar nooga xir intaan ka dhoofno أعوذ بالله هي حبسي بان كجرا مالنتي دنب حبسيغي اديغا wax maxkamad ila fuula markii la waayay waa la iska soo kaydaay ka soo baxay bilii shar garay sheekadan ana qof ugu qasbay malcaaw laakiin ana go'aansaday inaan sheego oo wixii ugu dhacay aan la wadaago dadka Soomaalida luntayda inaan hadalkii dhibay hada ogti u jeedaan waxa la igu ceejiyay xabsi markaasaan dhiman lahaa والله waxa iga soo gaaray difeeta dhuuntayda yani xanuunka aan ka qaaday waa iska sheer garay shaashadana la garaac alhamdulillah ala kulli xaal waa iska joognay waa soo baxnay xabsigii wax ila qoro maxkamad markii la waayay
Kenya waa sida America u malaynaa dadka waa waqtigay la soo xiro waa in adigu week miya ma ogi xabsi maxkamad la saaro systemka Ingiriiska iyo America kulli qabtaa waa iska joognay xabsigii baan ka soo baxay anigii waxaan soo gatay laba oo sooda kuubwa qofkii Kenya joogi jira garanayo soodada oo dheer qofkii aniga dhibka ii geysanay gurigiisaan garanay waa tagay inaan maxaa la yiraahdaa ayaan doonay inaan maxaa la yiraahdaa dhalada aan ku dagaalamo way xaaskiisa ayaa aragtay hadduu baxay tiri way wacday uu imaaday waxaa la iskugu yeeray dudublihii meesha joogay Bashiir Guhaad nin la yiraahdo bas Saciid Guhaad baa la yiraahdaa ma ogi iyo group wala ii imaaday waxaa la soo wixii kugu dhacay haddana waa ka raali gelinay waxa sameynaysaa hotelkan deg hotel oo alwaxda hotel ilaa waxaa la ii diyaariyay in subaxii la itarxiilo anigana xataa lacagahaygii iyo waxaan ku shaqaysanayay suuqa iiga maqanay alaabteydii waan iska joogay habeenkii meeshii aan ku hoyanayay 9 saac habeenimo waxaa la ii keenay 2 askari bismillah haya labada askari meeshii igu xirtay nin baa gaari ku wada Soomaaliya wuu ila orday waxaa la igeeyay airport ka la yiraahdo Wilson Airport anigoo fiicana waa qanasawti ku yaala ha Wilson Airport la yiraahdo oo jaad laga dhoofi jiray ayaa la igeeyay anoo xataa aan dhar haysanin oo dhaxan ah waa la adiga xarig baa la igu xirxiray waxaa la isaaray diyaaradda inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun hay diyaaradda jaada la isaaray diyaaradda jaadka You okay? بسم الله الرحمن الرحيم وأينيا feel free الحمد لله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxba ma emotional aan noqdo waxba ma ahan waa ku dareemi karaa diyaaradii waxaa la isaaray oo gabar oo sacad ah oo la dhigi jiray kilkil iska leeyahay umreena jaadka oo meesha ka reejirtay waa la qaaday haye anoo xirxiran oo figeysanaa la isaaray diyaaradda anoo xirxiran oo figeysanaa la isaaray diyaaradda بيعب waxaa la yidhi lambar konton meel yaraa mise lambar 60 ma xasuusto haye ayaa intaas diyaaradda anoo xirxiran oo xur ahayn jaadkaa la igu dhex qariyay waa baxay waxaa la igu barsantaareeyay hooyaday iyo walaalahay waxaan ahay qof oo dhaqan halaawday oo qamro cabo inuu wasaqoo dhan xumaan lagu sheegay iyo inuu dad يعني بين انت لقى ابوره اللي يريد دad sponsor naga qarxiyo wuxuu nagu sheegay FBI argagixisu nagu sheegay waa la ima sabitay haye marka ana masabidaalka waliga nasiib u lahay ma aqaano wal ciyaad billah alhamdulillah ala kulli hal wa iska joognay waa la iqaaday haye xal igeeyay lambar konton abdi bilaab ii taaganbo haye abdi taagan anoo xirxiranaa la igu qaaday waxaa la igeeyay maxkamad oo xarar yaalay marka waxaa la dhahay intaan ka dhoofno xamar nooga xir maxkamadaha xamar waxaa la igu tuuray maxkamadda xarar yaalay qol oo sheelo la dhahayo qofkii garanayo qol waxaa la igeeyay oo yacni cadaab ah adiga haye sorry hana dadka يعني أودّ مركان أرك والله سومالي دادا كدول من absolutely سومالي دادا كدول من نعم يعني تينيج وكدول ميها سومالي صح إنه وحالة سمية أنت على جنب حد I didn't know that لا فاسكو حوجا عادي واي ما أويناي ما وحير هنستو ما أويناي وحير إيسو هذا هيا إيوة أنا بأوينا أسكن توشو I can't even breathe marka waxaa lagu xiray maxkamadda oo mursadaha xarar yaale ali geey
shaqolaa la igeliyey meeshaasaa waa liga soo wareejiyey maxkamadaas maba ahane mid kale oo dudublaha leeyihiin allah dudublaha oo ku taalo warshada caanaha qofkii garanaya xamartii hore aa ligu wareejiyey habartey allah u raxmado waa la qalday waxay igu dhiibtay lacagay igu dhiibtay 1 bilaal ii gooyey anigu habartey waxaan ku dhaha hooyo يعني قلدا maanta iga galooysaa laakiin kuma cafin qiyaamaha maxaa kaa bi'iyey waa la isoo dulmiyey adigana waa igu darsoontay يعني isugay dhahday marka qof cadaaladay ahayd dadkii wacday weydiiyaan ku dhaha hooyo inay ayaka ay maxaa la dhahaa dadkii isoo xiray oo igu soo kaa dira adi ii kaa adeegsanooyo weydiiyaan ku dhaha hooyo يعني أنا بدع والي يدل مويا وأرد هويدي ووعدي وحارد هاي وحن كعب صوني إن أو نجا قرحي سبوسرك أنت ماما أنك دافنو هنوج حرنا هذا حمر محكمة داس هي على أنك دوفينو ماما دي وين ناقضي فضل صبورة الجراعة هي حبرتي وين ناقضي إما سو دين كرت لعاجي يقول ديبتي نيرسي هاي يعني أمولسة هاد حب يعني بهالشيء يقول صاد عادي كان عادي يقول صاد عادي جيفك أو ماشى أو بوريد كتاشي سلي 7 ستريت كمي مؤجي يعني كان ملاريا يقول عادي وإمادي هاي يقول إيماني كنتينر كنت دحرنا كليل حبين إيمان السلسلة ده يعني والي قراعويا معلومة البدت ولا قراعة ماشاس وافهم إذن عذاب هي سيدا ماشاس تتكلموا عذابه يعني عيجي واللي ما لها ينكل اسكو كادي هذا كور انت اللي عيجي ينكل مركا يعني دون تاس حتى حاجة جاري يعني ضعيف الحمد لله على كل حال واسكي واسكي بحني هبينكي أنا ماشي إسكاجي حرن هذا إيمانيسو أي كان عادي يقدريسو مرم يعني أكنت أنا اللي قنفلويا إنا لله هذه نمن أو ماشي يقول حرناي صاحب بدوت هبين كدنب ماشي صورين وموريان حبسيجيا حرق اللوجوي أنا سلسلة كل حرنا كسوف كذا مركب dadka dhan way carareen maxaabiistii waa baxnay waa joogay dadkii aniga ixiraya wacay lacagteedii waxay ka soo qaadeen axmed bangal maa la dhihi jiray yar oo ku lahaa meesha kawaanka waxaa la dhahaa nairobi way kaaga dhammaatay lacagteedii way ka soo qaadeen way cuneen wix aan ku shaqaysanayay yacni war lacagteedii sii waxaa la dhahay meeshaada ku dhimo duqa anigu marka qaladkeyga marka halkaas ka sheegaa haye dadka ooyinta soo qora bloggaray yaa haayo ana hay shaqo ka qabanaya qofka ooyinta soo qoraayo insha Allah faadumo istaab qofkaas qofka ooyinta soo qoraayo jooji winaga lusaanaya oohinta ka daayo hadda doonto wadnaha yar dhexda ee kala jeexan soo qora waxyaalo kala soo dira laakiin ka daayo oohinta winaga cuslaanaya please winaga daayo please ishaarta waa idin baryaa shaashada ishaarta haye ani halkaana ka baxnay haye anigi yani anug yara ah qaladkeyga meeshaasuu ka bilowday qofka ooyinta soo qoraa please stop يعني I will block you بين ما كوشة قراك نموذج كلنا قف سوقر أوين أنا وألف ألف قف كوتا يعني بليز يعني قف كان قفا إسكالا كداف أوينت يعني واحد علا ويدعين مسوان قنايان مودا بكاسر إيه وتشكر داوود هي وإسكي جوجني لأن يعني أنا واعي شوذي قف أول كلميان نقضي لعكتي حوجا الوقاتي هي أن wax kastoo lahay waa la isoo xiray waa la isoo dhibaateeyey waa ka soo baxay anigu aanan gaaray nin rag ciilkiis cadaab ka doortay waa baxay ani ingiriiska waa aqaanay waxaan ka dhigan jiray yani hore u soo dhigtay waa baxay nairobi aaday nairobi markaan tegey ani nairobi tegey maxaa igu dhacay
nairobi markaan tegey waxaa GVA meel la dhihi jiray oo qofkii nairobi soo maraa yaqaano GVA-daan tegey waxaan tusa dhaawacyadii ugu dhacay dadka dhibaatadaasi gaarsiiyey iyo inaysan maxaa la yidhaahdaa ay ilaa halkan iga tarxiileen qof la dhalatana isugu jirin haye ma fahante haye waa ka baxay gaashi waxay dhahday oo i wareysanaysay protectionaan ku siinaa mayaan dhahay intaas markaan ku sameeyey sponsorkii aniga wixii ugu dhacay aan dacwadeeda soo bandhigtay oon u sheegay sponsorna markaan waa aqaanay waa sheegay ما شاء الله ها يعني قف wax soo dhigata ahay waa baxay Ethiopia aadi Ethiopia markaa aadi mooyaale aan maraa soo waca dadkii qaarkood waxaan ku dhahay yani way ogaayeen waa u sheegay waxaan dhahay yani waxba isku lugoynina ka haabi adikane ana marka qaladkaas sameeyay waa aarsade waa baxay yani mooyaale Ethiopia soo galashay shamane waa soo baxay Ethiopia imaaday dadaa liiga soo adeejiyay ayaka dhanba waa u gooyey waxaan dhex galay daaroodan dhex galay aniga dad maxaa la yiraahdaa oo aan heer boosaas isla ahayn aan raadsaday waa u gambiyay meel dad liiga yaqaano Ethiopiadeedaan joogay waa ka baxay waxaan masaran ka aaday waa ka soo laabtay markaas ka bacdi waa baxay يعني سودان jeexay haye waa tahriibay Suudaan soo imaaday reerkayga dhan telefoon waa ka meel aan joogo waa ka qariyay ilaa yani way i dhaarteen heblaaya ku soo diraynaa Nairobi Ethiopia halkaas ku xiraynaa yani naftaydan la soo cararay haye waa soo baxay yani waxaan imaaday ilaa iyo saxaraha Liibiya soo maray Liibiya marka imaaday يعني reerka dhan ani waa ka dhuumanay waa iska gooyay Liibiyadeedaan joogi jiray waa ka soo baxay aakhirka waa ka soo dhoofay markaan ka soo dhoofay waxaan soo galay Maalto markaan imaaday sanadaan ka ceeshaayay dadka Ameerika loo soo qaaday aal igu soo daray ما شاء الله markii dadkii igu soo daray shaashada noo garaaca dadka Ameerika lagu soo qaadaay markii Arizona meel yiraahdo liiga soo dejiyay marka imaaday hilibka shaqo soo raadsaday oo yani waqtiga oo Obama ahayd George W Bush waqtiga dhacay ahayd shaqo ma jirin hilibka shaqo ka jirtay shaqaan waxaan u aaday hilibka markaan tagay shaashada garaaca Soomaali Maxamed haye hilibka markaan tagay ninkan oo jareerka hilibka markaan tagay yarkan oo jire oo ilmahayga qaado doono oo adeerka iska dhigooyo wara sokorta iga dhacday yani hal mar isku shaanan ku orda hal daqiiqo haye takata Arizona ka soo tagay Colorado meel dhahan soo aaday haye Colorado markaan soo aaday waxaan la kulmay yar ninka ilmahayga qaatay oo 6 sano haystay ayaan ugu imaaday haye dadkana qabiil ma dhaafaan yani yarkaas arkay ay soo raadshay yaa tahay la dhahay meel oo qabiil xun ka jira waaye waa la soo raadiyay ninkaas oo ordaha ii imaaday habeena la seexday meeshii hilibka tuulo waaye baadiyaan aaday waxaan iskala shaqeey jirnay ninkan duqbilow la dhahayaan isku naqaanay waqtigaas haye maxaa la dhahaa hilibka Fort Morgan meel la dhahay tuulo aan aaday aan ka shaqeeyo marka uu imaaday uu wareystay in ayaa tahay yaa ka tahay raadka kan waa u sheegay dadkii aniga aan hebel ma taha yani qof walba meeshaan joogo weliga qarso sirtaada qofka u tagtay ku wardiyay please dadka ooyinka soo qoraya hadda mood baa idin saaraya qoraalka ay fikiraya haye iyo wasaadu baa adigana biyahaada naga yaraysa wuxuu sameeyay qofkii waa i wareystay halkaanu ka baxay wuxuu isla markii telefoon diray
haye oo waagii sponsorka soo qarxi jiray halkan joogo yuuca Minnesota Minneapolis meel la dhahay weligay ma arkin mana maqle waa maqle laakiin ma arkin haye waa iska joognay hilibkii aaday ruuxii adiga waa shaqaysi jiray ilmahayga u dacwooday iyo maxaa la yiraahdaa iyo dadka waa dad family ma loo dacwoo karin laakiin ani waxaan ku imaadaba carruurteyda u dacwooday shaqadeeda iska wadi jiray waa reerkii gadaal markaas aan yacni aan lacag u diri jiray iyo ahal qaraabada adiga waa iska joogay magaalada imaaday maadaama oo dadkii dambe wixii familigeena annaga way noloshooda way fiicneed family business manhay ahaayeen laakiin ahalkii kale iyo qaraabada adeero abti magaciisii qofkii daran maadaama oo la iga rabin biil waxaa ila taliyey yar waxbarashadana waa jeclaay waxaan iska aaday college magaalada usoo guuray wiilaa aan ilmo abtinaha baawur siiyey magaalada imaaday magaalada markaa imaaday shaqo yaran oo renti kaaran ka shaqay jiray waxbarashaan bilaabay collegeaan markii dambe ku xarooday waa iska joogi jiray ilmihiyaa markii dambe yacni dacwadeeda iska watay jaamacadeedana collegeka waa ka gudbay jaamacadan galay marka saas ay u dhammaanayso ninkaa marka aan kuu sheegayo qabiil marka la yiraahdo waa jareer shiidlo waaye heerboon dheere buulo maqaarey ina nuur dudublaa la yiraa ina nuur sambuuraa la yiraa maxuu sheegtaa marka ugaaska duduble waa nin oo yacni naag caddaana ilmo ka soo dhalay la xiri jiray adi marka dadku isku diraa ani dadkana kuma dadarsan jirin dadka oo maalaayacniga meelaha wareega maqaayadoo marka qabiil uga sheekeeya saaxiibka dhowr jeer u soo galay wiil yaroo aniga aan keenay oo gurigayga oo yacni madhibaan ah oo gurigayga ku dhiganaya high school iyo wiil kale oo aniga xawaadle ah oo isla degan oo walaal camal aan nahay isagana Arizona ka keenay iyo mid kale oo abtigay dhalay gurigaan deganayn kaasay marka saaxiib ahaayeen abtigay dhalay oo adiga ay isku shushuba jireen kii ugu dira dhowr jeer hadal qalad adigu yacni hadalladiisoo oo hadallo qalad uu sameeyey markuu iska gooyo aniga waa ka gaabsaday salaamu calaykum ugama badi jirin in hadal ii waran hebel soo yahay kan marka arko qofka inuu yacni qof ku dheganya maanta oo dhan waa u gambiyey marka wuxuu u fahmin aniga iskala weynahay yacni wuu daba dhigtay waa iska joognay magaaladii saaxiibka gabar wuxuu soo guursaday Soomaaliyeed oo gadaal ka soo guursaday ilmahayga imaadeen wuu soo galay ilmahaada itu soo dhahay maalin aan isku aragna gas station ilmaha madaa dhashay ha ilmaha isii yacni ha ii naag kuma joogto waxaan dhahay see ilmahayga kuu siiya adiga seehee ilmahayga adiga kuu siiyaa يعني who are you waa kala tagnay xataa ma barin ilmaha ma liiga herin marka gabar kaleete oo saharo kulana la dhaho oo soo raadsaday shaashada uma jeedaya 500,000 weli ma gaarin waa barya gabadhaas kaleete iyo waxaa noo imaadeen iyo gabdho Soomaaliyeed oo kolleyta habar gidirta ah markii ilmaha imaadeen qof walba qofkiisa soo booqdo yacni booqasho noogu imaadeen ilmaha soo barteen ilmihii oo ii joogo gabadhaana marka nagu soo hartay markay nagu soo hartay waxay nagu samaysay intay ka baxday ilmaha yacni wayna soo booqan jirtay marka dhowr jeer waxay igu tiri adoo 5 sano joogina jaamacad korkeena ku dhamaynaysaa anagoo 27 years joognane maxaa la yiraahdaa weligan iskool ma aadin haye marka qof walba Soomaaliya waxaa ogaataa haddaa aragto qof kugu mashquulay yacni qofkaa gooy waxba ha sii aamin ani waxaan ahay qof doqon ah oo hadalka doqon ma tihid dadka qofka iska aamina qofka ama waxba ka soo qaadin iska qosla laakiin dad cadow ah ayaa jiro gabadhan waxay samaysay marka waxay ugu tiri walaalow waxaan kaa caawinaa gabadhaada dhiigaa ku dhici karo
maxaa la yiraahdaa gabadhaada dhiigaa ku dhici karo timaha sida loo dabo ani ma aqoonin aan kaa caawinaa yacni goyna soo booqa jirtay ani shaqo markaa iskool ama shaqo ku maqanayo guriga imaa jirtay ku aawi ma joogaan dhihi jiray tag abaayo guriga ilmaha marka canug walba wuxuu wataa iPhone-kiisa ilmihii yacni markaan keenay daqiiqadan ilmihii yacni markaan keenay daqiiqadan waxaan ku baray ingiriiska yacni guriga iskoolka ingiriiska u dhigi jiray ya may gabadha soo qabanayaa waa hela waxay wadataa altomoda wacdaan haya iiwad falaawra soo gacanta soo taagay hal qof iiwad daawud shakadaada igu socotay caawa halka waxbuu cunaya hana waxbuu cunaya si ku xeer haya ani ma ogi marka shirqool aan ugu socdo saaxiibada iyo saaxiibkeed inay connection leeyihiin uma maleeyo waa isku joognay halkaana kasoo baxnay saaxiibtaa guriga imaataa maalin walbo ku aawa ma joogo waxaan dhahaa ilmaha cidee marka yacni aabba baxbax guriga gargaraacaan dhihi jiro way taqaanaa gurigeena suuqaan ku maqanaha ama iskoolaan ku maqanahay يعني انت المها وعن كفر ابو عايشه waxa u karisaa hilib kalaanka gabadheeda markuu xaqaani adiga ma sha Allah ilmihii ku mashquushay ilmahan kula eg isku facatihiin oo si gabadhaada si wax u karinee kanay ka dhacee yani adiga wallahi marka aniga waa soo booqana ilmahay la baashaale waa ka maqanahay ilmaha hooyadood waxay kala hadashaa marka Skype wax la yiraahdo iyo magic phone oo free aan u sameeyay ay iskala hadlaan ma hooyadan ku noqsatay dhaad iskuursatiin ma guurs yani ma yan ku dhahay adiga hooyadii isbarteen waa la isku xirtay iyo ninkan ilmaha marka aniga aan baxo waxa la dhahaa ruud waay bihi gabadha marka waa gabdhaha oo ku mashquula jalaabiibka oo yani wax badan xataa gabadheedu waxay ku dhahday maalin inuu la joogo iska siib timo qorxoona leedahay vitamin D u baahan tahay gabar yar baa tahay iska siib yani jalaabiibka canugtaana canug waxay xag jir ah oo Soomaaliya iyadoo yar lagu soo bilaabay jalaabiibka way diiday goonadan barafka waa ku kufay iska siib surwaal gasho ayada marka maamadaas surwaal ay ku labistaa waa aniga surwaalka ma soo horjeedo walaalayaal laakiin qof walba choice-kiisa waxay ugu dhacan ka sheegaa haya dadka oo madax u qaawan yahay aniga dadaan ka soo horjeeda ma aha adiga iyo ka ilaahaada qof walba waa ijaaj garay ha yani ilaahay qofku dambi hadduu galo ka toobad keenaa yani canugtaana isku dayday marka teeda uguma horeyso walaasheed la dhalatay saacadii kulana gabadheeda ku hooy ku aabe ayada iyo nin Suuriyaan oo Caraba oo qaba ilmihii ka qaateen hadda koora ma fahantay waa iska joognay waa weydiiyey waxaan dhahay aabbo run waa iska siiban ku dhahay jalaab waa ku kufee goonadan inta iskool aado jalaabiibka iska siib timaha la yirso gabadhaas yiriista xataa guriga aniga wiil walaalkeedoo la joogo weligeed ma arkin weligeed iyo alahe la sameeyay waa wax adiga ay adapt ku noqotay waxaan ku dhahay markay diiday canugti abaa dhageyso xur waaye haday rabin ilaahaaba ku duway waa aayad quraan leave her alone marka saaxiibada dictator ahayd canugta yartaa marka waxa canugti yartaa ahayd waa nagu mashquusha anigana ma ogin dadka oo feejignaanta leh ama qof Soomaali ani haddii dariiqa uga soo horbaxo qof qosol badan oo qaraaxa badan oo daqiiqad qofku ku barto soo dhaweey soo gal yani aan ahay oo dadka iska aamina Soomaaliga ma bafka filaynin ba aniga qof Soomaali qof maxaa yeelay Carabaan ki imaaday Yurubtan ki imaaday Soomaali qof oo qof wanjalaayo maba arkinbo dooliga gorafta ku dhashay ku gaboobay ilaa Ameerika hool kala taalo waa iska joognay waa imaaday markii aan imaaday waa iska joognay saaxiibada waa baxa ilmihii inay xur ahayn waxay ka dhac ilmihii adiga maskaxda laga bedelay saaxiibkeedna hoos ay ka wadataa hooyadii dhashay ayaa waxaa laga dhaadhiciyay in oo maxaa la yiraahdaa hooyadii iyada dhashay waxaa laga dhaadhiciyay in oo aan rabin inaan ku noqdo hooyadii
for some reason aniga ma for some reason aniga maba rabinbo oo iyagoo yaryar ah ilmaha hooy aabaheed ka daadiyey aabaheed caruurtu ayagoo yaryar ayuu ka daadiyey wuunana kala furay marka hooyaday iyo reerkaygaa soo koriyey caruurta marka ayadana wuxuu ku daray wiil ninuu adeer u yahay waa fahantay saasay ahayd sheekada marka aan isku noqonay tiri gabadha aabbaha yacni allaa mana janaayaan ku dhahay ma rabin inaan ka hadlo hooyo aniga ilmo ii dhashay laakiin ka soco ha gelina faareeda ka soco ma gelaayo abbaa laakiin faakiskan kuu sheegaa adi dadkaasaa helay waxaa laga dhaadhiciyay ninkan in oo $500,000 baan gaari congratulation wada haye ku xumeyn in oo ninkaanayto america haddii dumarkay caruurtu ay ragga eedayaan xabsi inuu aadaa saasa aniga wiil waxaa ii joogay ilaahay ogyahay hanaabuu kala ka hadlinaa dhacda laakiin wiilkayga saaxir u ahaay been kuu sheegi mahana gabadha baariyay ahayd waa fahantay ha ahaato daawud wax yaraan kuu sheegaa aniga 3 beri kadib safaraa ahay xal baan u socdaa xal saan ku helo waxyaalada qaar waxaan jeclahay inaad ka hadlin adigoo raalli ah xal baan u socdaa haddaan khaldanahay soomaaliyey waa adiga almuhiim ilmihii maskaxdaa laga gediyey inaa aniga dilay yani waarد ilmihiisa wuu xanaantaa wuu qaraacaa ma fahanta inaan ilmaha freedom aysan haysanin haddii aniga ay gacanteedana ay ka bixi doonaan ay free noqon doonaan hooyadoodna america ay u imaan doonaan ma fahantay america sidaa lagu keeni doono waa la ixray xabsiyaa lagu tuuray iyadoo lagu eedeeyey wiilkayga inaan xabsi inaan qaraacay wiilkayga ma fahantay waa soo baxeen dadka suuqay ii galeen barbagando ilmihiioo midiyo ku mudanow ka tegay ilmihiioo daqranow ka tegay waranow ku muday dhiig iyagoo ka daadanaw ka tegay adigu yacni marka micnihii caruurtan iyo familkan dib ayaan ka ogaan doonaa qof wax ka ogaay ayaana sheegay maalinti sidaa la ii xiray maalin adigu asbuuc 2 asbuuc ka soo wareegato ayaa waxaa la igu sameeyey saaxir gurigeena la keenay waa maalintan lugaha iska jabinaayo anoo xabsiga ku jiro waxay sameeyeen anigiyaa imaaday anoo shaqo ku maqan la iigu yeeray markii la iigu yeeray shaqada askar iga soo yartay guriga markaa imaaday yacni hallwaygaa la igu qabtay gurigayga waxaa qolkiisa ku jira saharo kulana gabar la yiraa islaanta saharo kulana la yiraa iyo ilmihii iyo askartii aniga horeyaa la istaajiyey meeshayaa la igu xiray xabsiyaa la igu tuuray xabsiga sidaa markii la iigu tuuray iyadana ilmihiina ayadaa tiri eedadood baan ahay ayadaa qaadatay gurigeeda aakhire war baa jira haye gurigeeda ayay geysatay ma fahanti gurigeeda ayay geysatay 1 daqiiqa ha la siiyaa walaashees